أصحاب تقالق أتبان دي سلامية ابن آذن سواي أرين كلا جيسي بريها كان أنيقا هالكان جاء أنكسيستي سماها أتباي دي سلامية سلام كدب شاكاي دي هيا برباني دي هيا أتبا دور تعشين سلامات من كل آفات إذا جيست بسم الله الرحمن الرحيم أنكم بلابو هذا الكيغا حالي أروسكيغا أنا جايو أودجيغا حسين أروسك قلت لك لنا أصلك دقنو صرت هذه سيدي أي وحاية يصير السوشيال ميديا اللي قوضو أنا جاينا طلبتها أنا دقيستان سوى يدين بلابيا أنكم بلاب مجا إلهي بسم الله الرحمن الرحيم إن واحد بدن كأوران مايو مهمية عن ربعنا اللي هو سيدو أروسكو حالي أها وكبلودي إيه سيدا عن أنو أصلا نستيحة أهان أو أروسدي أهيد عن كأمي سنة هاي أو قبل سيدو كبلودي سوق بدن بهيد سيدي لو سو أقاسمي family and friends أو قرب في عن إكسيي ولقي أنا هلمامي دونين still نونا أن أمي سنة أروسكي سوق روح بدن نكون ماذي لأنه ودتك قارئ أملين إني سخلدن وكل ماذي سخلدن أنا يقولوا مدمانو أمد إتشعل ببوحدي ماشى سومالي محمد انتي دبد يدلك بتشوكتي بوحربين إنك قيب يمتقنا مرخانتك هذان أنا يقول قبر سومالية كسكو قبر فنانة ذان هاي بلشة سومالي مقعبان كلها هاي وحنا نقول هاي إني آد يتشعليهن أمد الصوماليات إنتان شعلها إنك بدنا يتشعليهن إنت إيتي من تي يتشعليهن إنك بدنا أنا وان شعلهاي يجونا وأوجهين يتشعليهن وحن آد ولي بأنكر اللي قلنا دمان إنتي ماذا شاس كسبنيت حالة السوق بن قابسي ما شاتمي ما شو دق ويدي هرت بقول أبولا شايس بايدي كسينيا إن طلبات وحن ربي إن أنا وانو حماين دمانتي سو ذي قلين وحاصلنا واجعل وإن aan bulshada dadka kale gabadhaha kale inaan dheerahay ayaan isku arkaa sidii aad xalay iigu soo baxdeen oo rabteen arooskayga inaad ka soo qayb gashaan runtiina waa qayb wadnahay kamid ah ayaa waxa idin leedahay waan idin waa alshan wadnahayga ayaa idin dabacsan sidaas quruxda badan aad u soo wada baxdeen dhamaantiina u wada qurux badnaydeen waan idinkaga mahad celinayaa oo marnaba xagga qasaar ma taalo waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo oo mahad gaar u celiyo qayb kamid ah dadkii xalay madashaas joogay dadkaas oo ugu horeeyo familkayga oo dadkii deeq family and friends waliba qaraabadaydi dhamaantood magacan oo soo koobeen familkayga waa familkayga qaraabadii asxaabtii fanaaniintii oo intaan soo casumay runtii si sharaf loo qiimo badan mid walba xaadir soo noqday oo heesa ay soo diyaariyeen oo ay ila garab taagnaayeen aad iyaguna waa familkayga fanaaniintaas waa familkayga oo fanku isaga walaal ah intii fanaaniin meesha xalay joogtay anoo idin kala qaadaynin qof walba wadnahayga boos buu ku leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii dibadda ka shaqaysay oo ay kamid yihiin Kabray wiilkan habarto ahay maxaan ku raahday oo jooga Indonesia hadaan khaldan hadaan khalday wadankay raali aho oo shaqo badan iyo xoog badan ka geystay habar macaan wiilka habarto ahay Kabray habar macaan waxaan ku leeyahay thank you so much aad baan ku jeclahay meel aan film baad ka soo baxday runtii waana ogtahay muhiimna maaha inaan sheego waxa qabatay laakiin waad sogtahay qalbigaagu waa ogyahay kayguna waa ogyahay habreer talamaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan fanaaniintii dibadaha ku maqnayd ee heesaha ay soo diyaarisay ay kamid tahay wala maxaan ku dhahaa maama Sahra Ilays maxaa la yiraahdaa dalmaryare sakiyare allahumma musta'an ilaahay rabbiga inta ilaa way dambigooda iga dhaaf dambi tahay laakiin qalbiga waa idinka jecel waa idinka ogahay dhammaan fanaaniintii xalay madashaas ku sugnayd oo aan xabad u kala saaraynin ee dhamaantood xil iska soo saaray inay aniga i farxad geliyaan aniga odaygayga waxa idin sheegayaa inaan qalbigayga aad daris la tihiin oo aan deeply aan idin ka mahad celinayo waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo family and friends waxaan kaloo ma soo koobi karo ummadii Soomaaliyeed meel walba xalay joogto horta way isku yimaadeen aad baan wili
إلا هذا كسر العلنية أذ بنروح ماشي ندق ويدي لكن إن شاء الله بدنا كلنا وربنا كلنا طلع بدنا كلنا anyway وايد على هاي إقرأ لي هذا إذا لاوي هاتف ليبان اللهم زد دي هاش دتكي واسكون خلق الله واسكون خلق صراحة anyway دمانتين ولا لا هاي أدبد مس فنانين تيرير نروي دمانتين السويدن دمان فاميلي لبضت لنعبا فاميل كيغا odagayga familkiisa dhamaantiin dan waxa idin leenahay waa idin taaganahay waana idin mahad celinaya waadna mahadsantihiin I'm very happy waan faraxsanahay as long idinkuna adila faraxsantihiin I love you guys warkiyo koona kombo ku jira hal mid baan rabaa midda kale aan rabaa inaan ku darso xitaa dad badan baa waxay walwalayo islaay gabadha qalbigeeda miyaa wax no and sidee ay ahayd waa ku qanacsanahay waayo wax walba qadarta Allah ka weyn aduu gooni baad u tashanaysaa ilaahayna gooni buu u tashanayaa marka marnaba wax walba sidii ilaahay kuugu talagalay hadda u dhacdo alxamdulillah ma sharaysto si qurux badan anu waxaan u arkay kaliya ummad Soomaaliyeed oo jecel inay meesha soo buuxsameen oo ay halka yimaadeen oo mid walba rabay inuu marxaanti iyo xaadir ka ahaado walaashood ama fanaanadooda ama gabadhooda oo deema taqaanaa aqal galaysa insha Allah biidnillaahi kariimna mana jecel ma taqaanaa wax negative oo soo qoraa ama social media ama meel Facebook yar ama aduu aan waqtigayga ku lumiyo ama indhahayga aan waqti ku siiyo inaan ku fiirsado ama ku aqriyo waxa negative ka waxaan jeclaa inaan iska dhaafiyo alxamdulillah rabbil alamin more aan negative dhageysatid more aan waxun aad indhahayga raadiyaan adigana kuma fiicno dambi bay kugu tahay caafimaad ahaana kuma fiican maskixiyan marka muhiimadan ka hadlayo waxay tahay hawada aaminina waxa la idin sheegayo علشان waqti hasiinina rumo wada ah anaga aroos kalaha aroosadii baan ahaa si wax u dhaceen qof kasto meesha joogay haduu runka sheego wuu og yahay hadalkaygana meesha la taaganahay qofan xumaato u qabana ma jirto xumaata meesha ka dhacday oo ahayn Soomaalida iyo farabadatay dadkii shicibka farabatay mooyaane wax kale oo dhibaato dhacday maysan jirin social media has marka waxa idin sheegaya waxa laga sheegay علشان wax runtii muhiim ah ama run ah may ahayn marxaantu waxa ugu filan intii joogtay iyo aniga oo ah gabadhii aroosaysi marna gabadhii fanaanada ahayd فناد بنكها ما فناد كم أرصد ديوانا أنت صنكوا كذا anyway هذا الكيو كوم بكتيرة وحيد الله ولا وحي نيجاتيفا يوحي حنبا شيطان بأسوناتي وحي وناجا عقلك السليم كا متقانا شرفته با ووح بني آدم كالله كويسيو مركا الحمد لله رب العالمين أز أنا وهبي بانا هاي تدكي مش جوي هبي بقى هاين Soomaalida dadkii shacabka jacaylkooda iyo wanaagooda iyo sharaftooda baa meesha wada deeq weeday aad in ay jecel yihiin baan ogaaday ummadda Soomaaliyeed aad baan idin jecelahay hadda kadibna waa ka soo hadli doonaa arintaas iyo in aan ka soo hadlo ama u mahad celiyo dhamaan shakhsi family and friends fanaaniintii qurux badan فنانين هديين كاميرمان هديين